xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa munaasabad soo dhaweyn u qabtay 3 murashax oo kala ah Maayir Ismaaciil Xaaji Nuur oo ka sharaxan golaha deegaanka ee degmada Ceerigaabo, Muuse Maxamed Saalax iyo Mubaarak Muuse Ismaaciil oo u sharaxan golaha wakiilada kana sharaxan gobolka Sanaag. waxaana munaasabada oo lagu qabtay Hotel Rersi ee magaalada Ceerigaabo ka soo qayb galay taageerayaal badan, mas'uuliyiinta xisbiga wadani, cuqaal, haween iyo waxgarad kale, kuwaasi oo munaasabada ka cadeeyay inay 3 murashax isku soo raaceen beeshuna ay soo xushay oo soo xulanay musharaxiintan aragtaan Muuse Maxamed iyo Mubaarak Muuse Dhalaal iyo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaan soo xulanay. waxaan leeyahay xusbigu waa inuu naga gudoomaa musharaxiinta aanu soo xulanay ayaan leeyahay. waanu ku soo xulay madaxda aanu halka keenay, waanu soo xulay waxaanu leenahay naga gudooma dagaal waa galin dambe sidana u soo sharafteen maanta u timaadeen madashan u soo buuxiseen maalinta codbixinta ayaa la rabaa in sidan iyo si ka sii wanaagsan aydan u timaadaan. 3 musharax oo kala ah Mubaarak Muuse Ismaaciil oo u tartamaya golaha baarlamaanka, duqa magaalada hore inoo ahaan jiray hadda wali jooga oo maanta taagan goobtan waa Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax iyo Muuse Maxamed Saalax. waa mid magafin waa keenay xisbiga wadani, waxaanu leenahay garoonka musharaxiintaasi ku tartamaysaa waa garoonka wadani. waxa geestooda halkaasi ka hadlay xubno marti sharaf ah, kuwaasi oo soo dhaweeyay 3 murashax. farxad weyn bay tahay inaan munaasabadan qiimaha leh aan ka soo qayb galo sida cuqaashii iga horeysayna halkan kaga dhawaaqday musharaxiintan maanta halkan u taagan musharaxnimada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka cuqaashu ku dhawaaqday ee maanta soo gudbiyay. waxaan leeyahay waa sida ay u soo gudbiyeen waa la qabaa. waxaanu leenahay xisbiga si milge leh oo sharaf leh oo karaamo leh looga gudooba. indhihiina idin macalila odagii baa maraya, waa rag jiraban, roog cadaagii soo rogaal celi baanu leenahay. ragga maanta la keenay indhihii caafimaad qabaa way arkaan, xisbiguna wuu arkaa, madmadow kuma jiraan. waxaan leenahay maanta miisaankii xisbiga degmadatan maanta gacanta ku haysaan hanta. waa aragtaan musharaxiinta talqaayaha badan ee uu hogaaminayo rugcadaagii hore Xaaji Ismaaciil Xaaji Nuur iyo musharaxa Mubaarak Muuse Ismaaciil oo u degan u sharaxan golaha baarlamaanka iyo Xaaji Muuse ma aha rag miisaan la weeye, ma aha dadkii soo orday ee nagu cusbaayay iminka yimid. xarash mooye xilaan lagu furay inaan xero kale xiddo godol iyo xiis laga wada iyo horumarka degmada ayaanu ku soo celin. sidaa darteed walin dhaadhaama anigu waxba faallayn maayo. maantana annagaa soo xullay, annagaa maayirka ka maarmu weynay, halkii uu ka qabtay baanu ogeyn. mudanow Ismaaciil ninkii magay waa qadafe, gobolka madow buu ka dhigay meel muraayad ahee, gobolka madow wuxuu ka dhigay meel muraayad ahee. dawladda midoob oo dhan iyo meeriska adduunka, Mareykan iyo Ruush buu tagay saydun maqasheene, war wata macaankii la helay midha dhalkeediiye, wata la wada maalaya sidigti mandeeqe.
maayirka magaalada Ceerigaabo degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax ayaanu soo dhaweynaynaa waxaanu soo dhaweynaynaa xildhibaanka u tartamaya golaha baarlamaanka Mubaarak Muuse Ismaaciil ayaanu soo dhaweynaynaa oo kalisi kale yeelaada u soo dhaweynaynaa waxaanu soo dhaweynaynaa xildhibaanka u tartamaya golaha deegaanka Muuse Rodrisna waa soo dhaweynaynaa ku hayn kara isaga isu celin kara waa nin weyn nin baahan maaha maanta inaga ilaaliya yaafta marka maanta maayirkeena lala shaqeeyo inagu waxay noo qabanayaa anigu waxaan qirayaa inaan dawladda hoose waxba ka cunin ninkaasi annagu waan isku dhownahay aniga oo eegaya danta reerkayaga danta xisbiga danta maxay ahayd inay bulshaweynta bahweynta aan ka soo jeedo iyo dadkii aan codka ka sugayay anigoo eegaya waxaan anigu u tanaasulay Mubaarak Muuse Ismaaciil oo u taagan golaha baarlamaanka sida suuqa maydka la sida iska daa wax kale oo maantana wada laab ma tahay shakadan laab yahay miyay jirtaa meel walba sawlaani maaha inta horumar gobolka ka dilaacday ma muran baa ku jira in Ismaaciil qabtay aad iyo aad ayaanu runtii aanu ugu mahadnaqaynaa iyar haddaan ku yar dheeraado oo aan iyar xuso taariikhda maayirka aniga iyo raggii u sugayay baan ahaa ilaa war xaggaad ka dhacday maayir baan kula joognaa waan ku taageeraynaa waxaan ahay ninka khadka dhexe uga ciyaara xisbiga wadani ninka khadka dhexe uga ciyaara baan ahay u malayn maayo ninka kulmiye la geeyaa inuu iska kay celin karayo u malayn maayo inuu iska kay celin karayo taasi waa intaa ta kale waxaan leeyahay anigu waxaan lug ku maray magaalada Ceergaabo ayaan lug ku maray surin walba waan ka laabtay magaalada Ceergaabo isbedel weyn ayaa ka muuqda suuqyada saddex qof halka lagu soo bandhigay waa saddex qof oo khibrad iyo aqoon u leh shaqada ay doonayaan waana saddex qof oo dhammaantood ka qayb qaatay arrimaha bulshada wax badan ka qabtay maayir Ismaaciil Xaaji Nuur isaga badan ku shaqeeyay degmada gabagabadiina waxaa hadalka isaga kala dambeeyay murashax Muuse Maxamed Saalax Mubaarak Muuse Ismaaciil iyo Ismaaciil Xaaji Nuur maayirka magaalada Ceerigaabo oo isagu ku dheeraaday waxyaabaha uu qabsoomay intuu degmada joogay iyo waxyaabaha uu qorshaysan inuu qaban doono intaa kadib waana soo sharafteen waxaan idin leeyahay ilaahay idin sharfo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan runtii ku dadaalayaa inaan gobolka horumarkiisa iyo shuruucdiisa iyo arrimihiisa bulshada ka shaqeeyo oo aan runtii xidhiir toosa la yeesho waxaan ku ballan qaadayaa inaan degmada ka warhayo oo aan ku soo noqnoqdo oo aanan ka maqnaan waxaan ku ballan qaadayaa inaan magaalada xafiis ka furto dadku arrimahooda iyo waxqabadka iyo sidaan wada xidhiiri lahayn ka wada tashanno waxaa u soo badani ku dhacday dhallinyarada iyo haweenka hablaha iyo hooyooyinka aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya waxa wanaagsan hadduu isa soo taago qofku masraxa inaanu odhan waxaasaan qabanayaa ama waxaasaan qabtay waxaa ka wanaagsan inuu marag furo shacbiga meesha ku nool ee dadka reer Ceergaabo inay ka marag furaan ayaa habboon kaana runtii waan ka mahadnaqayaa oo waa caddaysteen oo waa sheegteen waxaan idiin caddaynayaa haddaba waxaannu qabannay idinkaa ka warramay idinkaana og laakiin hadda waxaan sheegayaa intaan elekshanku dhicin May 31 waxaa noo diyaara 1,200 foosto oo daamre ninkii arkay waa arkay waxaannu ka keennay Eeraan waxaa yaallin dawladda hoose waxaannu keennay macdaadkii oo aan waxba ka maqnayn ilaa iyo booyadii
daamurka oo u dambaysay ilaa wiiganna waxaa imanaysaa booyadii khashinka qaadaysay waxaan idiin ballan qaadaynaa intaan doorashadu iman inaannu bilowno insha allahuna aanu ku rajo weynahay inay dhammaadaan qiyaastaannu wadanaana waa 2 kilomitir ama waa 3 waxaana loo ku ballan qaaday 1 kilomitir oo GPLG la yidhaahdo oo iminka la yidhi kilomitirkii ugu horreeyey ayaa laynoogu deeqay qandaraaskiina waa la bixiyey weli nama soo gaadhin waa lagu dhadhami lagagama dhigo waa kii ugu horreeyey halka 10 sannadood GPLG laga maalayey innaga kaasaa inoogu horreeya iyadoo ay noo samaysan tahay 19 kilomitir oo aynu ku samaysannay juhdigeenna iyo dadaalkeenna waxaan leeyahay reer Ceergaabo qof anigu haddii aan maayar ahaa muddo dheerna soo ahaa qof waxba idinkuma tarin idinkuna tari kari maayo laakiin waxaan idin ballan qaadayaa magaalo cusub oo Ceergaabo wada laamaya oo xaafad wada gaadha inaan insha Allah u gaarsiiyo waan idinka guddoonnay 3 musharax golaha baarlamaanka iyo 2 xubnood ee golaha deegaanka 3daba waa idinka guddoonnay si ballaadhanna waa idinka guddoonnay saddexduba waxay ka tirsanaayeen marka hore xisbiga wadani bay ka ku suntan yahay nabadda cadaaladda iyo waxqabadka ayuu ku suntan yahay sida dad hore u sheegay waa ninka keliya ee reer Ceergaabo isku hayn kara isku wadi kara isku dhiqi kara inaad keenteen aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa haddaan nahay xisbiga wadani waannu idinka guddoonnay si mug iyo miisaan le baannu xildhibaanada idinka guddoonnay